waxaa lagu codsanayaa dhalinyaraha hal daqiiqo iyo ducayo faatixada u aqriyo dhalinyarada ku hareegtay badda u dhaxaysa Masar iyo Talyaani. maanta iyo maalmaha kale waa taala waalidiinta weerarka xidhan ee ku gobolay masiirada taariikhda aafadani waxay u baahan tahay maalin iyo maamul suuban. waxaanu idila wadaagaynaa taxsiinta hilaayada annagoo geliiliyada dhiilada dhaayaha leeba ka hintirayso dhalinyarada tahriibista iyo maalin kasta dugtoobayna dhiiladoodu rajaxoomay aarsadeen waxaana u muuqata tuucaala ah ma jirto ididiida iyo dowladnimo la daayan dhalinyarada duruufaha shaqaa ay ku xiran yihiin mustaqbalkooda xaska badani ka sokeeyo wuxuu baanu waxaa laga dhaxay way soo kordhisay xukuumadda geeriyeeda qoli ee iyo cadaaladdarro xukuumadda koomiyana waa dooladooda ku tulmo haddii sida xaalahaado xoog ha joogee dhalinyarada badha wuxuutuleeyey badhay waxbadeedkaa ku cashay badha hadhayiyo jab iyo quusbay mustaqbalka ku dhamaysan doona garowshiyala-aanta waxaa dheer iimaan la-aan aanay tubaalo iyo degeen lahayn xukuumadeena hurmada hawaagalay wasiirada biyaha kooban bilooyinka iyo foomida ku biraystay ee tawirkooda yarkooga cadcad ay isbaal tuuleyihiin gawaadhida kufari waa abaarta horumar la-aaneed ee ugu haysatay dhalinyaraha dhaqaalahagaaka loo beecsaday haddii loo weynayn lahaa oo loo samayn lahaa qorshe iyo nidaam waxay badbaadin lahaayeen kumanaan kamida burbuudka taabacadaha ka qaljiri madaxweyne hagarasho iyo horumarin baan u aragnaa dayaca dhalinta aanay daacadda ka ahayn xukuumaddaada itaalkay doontaba xoogga dalka haddii aan loo samayn siyaasadii raja abuurid oo mabaaxi guusha iyo gallada had iyo habeen aad u faantaan waa beelawaasnimo aanay dhalinyadu geyin dhalinyarada Soomaaliya waxay xaq u leeyihiin inay ku noolaadaan mustaqbal hirashade kuna naawoodaan nolosha ashkaarkood dunida ku haystaan waxay imanaysaa mas-uuliyaddaasi marka dowladnimada habboon la helo ee xilkasnimo loogu adeega qaran mas-uuliyadeedu xisbi ahaan iyo dhalinyaraha waa sidii loo badbaadin lahaa mustaqbalka dhalinyarada ruuxo qarniga rafaadsanaa shaqa abuur iyo rajanooleyn ididiilana loogu samayna dhisida dugsiyo farsamo waxaanu maanta la wadaagaynaa dareenka kunanaanka waalid ee weerarka xidhan masiibada daran ee ka dhacday dadweynta Masar iyo Talyaaniga waxaanu leenahay gurimo fogiyaha gabashii badanina lagu yaalageey dhalinyarada meel cimiliya ku jirtaa isbeddelka aqoon ee wadinko ka yahayna aynu kulligooda kala qayb qaadano waa nagaasati